gudoomiyaha baarlamaanka Puntland iyo wafdiga hogaaminaya oo socdaal ku maraya gobolka Sanaag iyo gobolka Highland ayaa tuulo lagu magacaabo Midigala uu istaagay ayaa dadweynaha halkaasi joogay waxay kala hor yimaadeen barnaamij sida la sheegana waxa ku dhaawacmay taliye ku-xigeenka ciidanka booliiska Puntland inkastoo la cadeeyay in dhaawaciisu yahay dhaawac fudud waxa kale oo iyana jira in dad kale oo meesha ka dhaawac soo gaaray gudoomiyaha baarlamaanka Puntland intaas kadib waxa uu gudbay gobolka Sanaag gaar ahaan caasimadiisa baran halkaasna waxa uu kala kulmay soo dhaweyn u balaaran hase yeeshee kama uusan hadlin dhacdadii Midigala ka dhacday inkastoo uu arrimo kale oo ku aadan gobolka Sanaag uu soo hadal qaaday dhaawacan marka muxuu ahaa dhaawaca ma rasaas ma dhagax baa lagu riday maxaa dhaawacay taliye ku-xigeenka tuulada Midigala markay dadku isku soo baxeen oo waftigan uu gaaray waxaa la sheegay in meesha ay ka bilaamatay banaanbax dad dumara iyo ay wadeen kadibna rasaas baa waxaa riday sida la sheegayo dad meesha ku sugnaa hase yeeshee ilaa hadda booliisku si dhaba arrintan ugama aysan hadlin oo waxa sababa iyo kama aysan hadlin hase yeeshee waxaa la sheegay in ay rasaas nool ay ku dhacday dadkan dhaawacmay marka dadka maxay ka cabanayeen Axmedow maxay diidan yihiin oo keenay dhibkan sida la socotay Cataashow horey waatii gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Cabdixakiin Maxamed Axmed Dowladaareed baarlamaanka Puntland xasaanadii ay uga qaadeen tabashooyin ayaa iska jiray waayadii ugu dambeysay qaar ka mid a dadkaasi gobolkaas ku sugan hase yeeshee ilaa hadda ma cadda waxyaabaha sida dhabta ay uga cabanayeen marka arrimaha tabashooyinkaas waa ay jireen gobolkaas Sanaagna waftigan waxa uu aaday tabashooyinkaas iyo mashaariic ay sheegeen in gobolkaas laga fulin doono